mid ka mid ah dhaqamada ugu cajiibsan adduunka ee weli baaqiga ku ah qayb ka mid ah qaaradda Afrika nolosha qabiilka Hadzabe ku soo dhawaada muuqaal cajiib ah oo aan idinkaga diyaarinay qabiilka cuna hilibka duurjoogta qabiilka Hadzabe waa qabiil ka mid ah qabiilooyinka asaliga ah ee ku nool gobolka bariga Afrika gaar ahaan dalka Tansaaniya qabiilkan waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad ugaarsata ah oo aan si rasmi ah ugu tiirsanayn beeraha ama xoolaha la dhaqdo tiradoodu waa ilaa 1300 oo qof waxayna maalin kasta quutaan hilibka xayawaanada ay soo dishaan ee duurjoogta ah waxa ay caan ku yihiin xirashada dhar ka samaysan maqaarka xayawaanada oo la isku tolay ma jiraan guryo rasmi ah oo ay degan yihiin waxayna ku dhex nool yihiin keenta habeen iyo maalinba waxayna ku nastaan guryo ka samaysan laamaha dhirta kaasoo halkii xababa lagu seexdo ilaa 10 ka mid ah xubnaha qoyska waa nolol gabi ahaanba ka duwan midda caadiga ah ee aan naqaano cuntadoodu waa mid aad u wasakhaysan hilba duurjoog oo aan si fiican loo karin iyo ugaarsiga joogtada ah ee xayawaanada waa mid jirkooda ka dhigtay muuqaal ahaan mid bedelan kan ugu yar ilaa kan ugu weyn cuntadooda waa mid subax walba loo jarmaadayo si xubnaha qoyska loo quudiyo hilibka xayawaan kasta agtooda waa ka xalaal hadiiba ay heli karaan kumana dhaqmaan wax diin ah mana la socdaan tiknoolajiyada casriga ah ee ka jirta adduunka subaxda hore intaysan shaqada ugaarsiga u kalehin ayay isku wareejiyaan dabkan si ay isugu kululeeyaan maadaama bilaha qaar cimiladu ay qabowdahay caruurta inta yaryar yihiin ayaa la sii baraashiishka toogashada si markay qaan gaaran ay u noqdaan kuwa macallimiin ku ah soo dhacsiga iyo dilashada qadamaalmeedkooda waxay isticmaalaan fallaaro si ay ugu dilaan xayawaanka ay ugaarsanayaan sidoo kale eeyuhu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah helitaanka cuntada maadaama iyaga laftooda ay sugayaan wax gooska la saaro luqadda qabiilkan waa mid aad u adag in la barto mana lahan hinkaad iyo far la akhrin karo oo qormaysa waxa ayna ka kooban tahay dhawaaq xooggan oo ay adag tahay in la karo xitaa magacyadoodu waa kuwa aad u dhaadheer oo aan la qaban karin What's your name, man? What about you? qabiilka Hadzabe waxa uu ku nool yahay dhul ballaaran oo ka tirsan Tansaaniya gaar ahaan deegaanada ku teedsan harada Iyaasi kani waa deegaan ku yaala gudaha kaymaha iyo xuduudka buuraleyda Ngorongoro ee gobolka Arusha deegaankani waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku badan yihiin duurjoogta sida garanuugta burwaaga iyo daanyarada deegaankan ayaa sidoo kale ah mid aad ugu habboon dilashada xayawaano badan haddii aad tahay ugaarsade xariif ah iyadoo xubnaha qabiilka Hadzabe ay si fiican ugu dhex nool yihiin deegaankan dabiiciga ah nolosha qabiilka Hadzabe waa mid ku salaysan dhaqanka ugaarsiga iyo ururinta miraha waa raadinta cunto maalinle ah si baahida looga baxo koox ay u ugaarsadaan iyagoo wata eeyo dheereeya oo durbadiiba xayawaanada soo qabanaya daanyeerka baaboonka waa cuntada loogu jecel yahay gudaha qabiilka Hadzabe sidoo kale waxa ay hilibkooda cunaan xayawaano fara badan oo ay ka mid yihiin doofaar duureedka sagaarada dabagaalaha iyo haramacadka shimbiruhu sidoo kale waa nooc ka mid ah cunto maalmeedkooda cayayaanada yaryar ayaan iyagana la daynayn haddii la helo qabiilka Hadzabe waa qabiilka kaliya ee loo ogol yahay dalkan inay ugaarsadaan maadaama dhaqan soo jireen ay u leeyihiin shaqadan ugaarsiga tan iyo 10 sano ka hor dalxiisayaal badan ayaa soo booqda deegaankooda si ay muuqaalo uga duubtaan dadkan la yaab kale iyo dhaqankooda cajiibka ah